magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta laga bilaabay doorashada xubnaha aqalka sare ee kuraastoodu taalla Puntland kuwa oo wakiil uga noqon doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare. bilowga doorashada ayaa ugu horeyn waxaa la dhageystay khudbadaha 22 musharax ee u tartamayay kamid ahaanshaha xubnaha cusub ee aqalka sare. waxa ayna intooda badan ay ahaayeen kuwa halkaasi ay ku soo bandhigayeen waxqabadkooda 4 sano ee soo socota haddii la doorto. intaasi kadib waxaa la bilaabay codeynta murashaxiinta isku haystay 11 kursi ee xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka Puntland. doorashada oo waqti dheer qaadatay ayaa ugu dambeyntiina waxaa ku guuleystay oo ku soo baxay senatarada cusub ee 4 sano soo socotana noqon doona senatarada kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Maxamed Cali Yuusuf, Maxamed Cabdi Cismaan Majino, Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade, Cabdisamed Yuusuf Maxamed, Daahir Ayaanle Siciid, Farxaan Cali Xuseen, Cabdiqani Geelle Maxamed, Saynab Ismaaciil Maxamed, Samiira Maxamuud Xaaji iyo Sareeda Maxamed Xasan. Liibaan Cabdi Cali, Telefishinka VOS magaalada Garowe.